السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي أدو مهسنتين وأحد وأنا لبي لباتنك بش اللي حد جون سنة كلبضو كون يشان يا لباتنك مقال كان وحرب أن نذكر وذاقه بقينتي مدحوين ترامب وجيستي جوبها نوكليير كاه ودنك إيران أو بربر حوجن وجارسية سيدا ترامب وشيء إيران محي كتري رئيس الوزراء نتنياهو sidoo kale sidoo u soo dhaweeyay arimahaasi ayaan rabaa inaan idin wadaago iyo waliba gantaalada ay dawladda Mareykanku ay u isticmaashay burburinta goobahaasi nuclearka ee wadanka Iran soo dhawaada marka hore maalmahanba dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil hadda maalintii 10aad ayuu galay maamulka Trump ayaa laga warsugayay in ay duqeynayaan iyo in kale goobaha nuclearka ee wadanka Iran Trump markii uu kulan la yeeshay golihiisa amniga qaranka 4 maalmood oo u dambeysay in ka badan 5 jeer ayaa ugu dambeyntii maanta waxa hal mar laga warhelay in saddexdii goobood ee ugu waaweyneed nuclearka wadanka Iran gaar ahaan bacriminta uraniumka laga sameeyo hubka nuclearka in Mareykanku uu ku daqeeyay diyaaradaha B2ga loo yaqaan iyo waliba gantaalo laga tuurayay quusayaal badda jooga sida hadda dawladda Mareykanka ay xaqiijisay Trump ayaa hal mar caalamka la wadaagay in Mareykanku uu duqeyntaasi fuliyay bartiisa Truth Socialka ayaa qoraalkan uu ku soo qoray hadda waxaan dhameystirnay oo aan ku guuleysanay weerar aan ku qaadnay 3 goobood oo goobaha nuclearka ee wadanka Iran oo ay ka mid yihiin Fordow Natanz iyo waliba Isfahan dhamaanba diyaaradihii fuliyay hadda hawada waa ay ka soo baxeen wadanka Iran waxa ayna halkaasi ku dhufteen ayuu yiri culaysyo bam aad u weyn oo ay wadeen isla markaana goobta ugu muhiimsaneed oo ahaa Fordow ayay ku dhifteen wuxuu yiri dhamaanba diyaaradihii hadda iyagoo bad qaba ay Mareykanka ku soo wajahan yihiin waan u mahad celinaynaa geesiyaasheena Mareykanka ma jiro military ka weyn kuwa Mareykanka ama hawsha ay qabteen qaban kara hadda waxa uu yiri waxa la joogaa xilligii nabadda oo Iran ay nabadda qaadan lahayd marka intaas markii uu soo qoray kadib haddana Trump waxa uu soo raaciyay qoraalka kale uu leeyahay shir jaraa'id ayaan qabanaya haddaba shirkii jaraa'id waa uu qabtay muxuuse uga hadlay marka waxa la leeyahay hadda hubka ay isticmaashay dawladda Mareykanka marka laga soo tago diyaaradaha B2ga gantaaladaha GBU 57 oo 30,000 oo tan culeyskoodu uu yahay oo bunker busters kala yiraahdo oo goobaha dhulka hoostiisa qarxiya in 6 kamida lagu dhuftay meesha la yiraahdo Fordow oo buuraleyda ku tiilay isla markaana la leeyahay waa meesha ugu muhiimsanayd waxa sidoo kale jira in ilaa iyo 30 gantaalo la yiraahdo Tomahawk lagu dhuftay goobaha kale ee Isfahan iyo waliba Natanz waxaana la leeyahay waxa soo tuurayay quusayaal badda jooga oo diyaaradahaasi xitaa maba aysan fulinaynin marka waxa loo isticmaalay goobtaasi Natanz waxa la dhahayay waa goobta Fordow aan iraado oo buuraleyda ah 1 iyo 2 iyo 3 kuma fulna marka hadda Mareykanku waxay leeyihiin 6 ayaan ku dhufanay meeshaasi la yiraahdo Fordow halka sidoo kale Isfahan iyana ay qarxiyeen arintaas waxa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha wadanka Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu uga mahad celiyay madaxweyne Trump go'aanka uu qaatay oo ku tilmaamay mid geesinimo leh waxa uu sheegay in howlgalka ay ugu magac dareen Rising Lion amaba libaaxa soo baxaya oo ciidamada Israa'iil ay ku wadeen Iran 8 maalmood ama 9 maalmood ee la soo dhaafay in guulo waaweyn uu soo hayay laakiin waxa uu yiri arintan taariikhda ayaa qori doonto waxa uu sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Trump ee meesha ka saartay iyo sida uu dhigay dawladda ugu qatarsan caalamka in hubka nuclearka ay ugu qatarsan caalamka ay hesho waxana uu sheegay in bariga dhexe hadda barwaaqo iyo nabad uu noqon doono waxa uu yiri marka hore waa inaad awood yeelataa marka dambana ay nabadu timaada sida darteed ayaa madaxweyne Trump uga mahad celiyay howlgalkaasi uu fuliyay oo goobaha nuclearka Iran uu ka fuliyay waa kan Netanyahu oo muuqaal kooban oo 1 daqiiqo iyo 20 sakana soo dhigay bartiisa Twitterka oo hadda X loo yaqaan. Congratulations President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record
that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. madaxweynaha waddanka Iran ninka la yiraahdo Masoud Pezeshkian ayaa isaguna waxa uu ka dhigay in jawaab celin adag ay dawladda Iran ay arintan ka bixin doonto waxana uu yiri waxa ay noqon doontaa mid burburisa waddanka Israa'iil iyadoo hadda aan la ogeyn jawaabta inta ay la ekaan doonto sidoo kale waxaan ognahay Mareykanka ciidamo 40 kuna inay ka joogaan wadamada bariga dhexe ma bartilmaameedsan doonaan mase Israa'iil oo kaliya ayay bartilmaameedsan doonaan laakiin Iran jugtan loo geystay sida ay uga jawaabayso waa la sugayaa madaxweyne Trump ayaa isaguna shir jaraa'id qabtay marka howlgalkan uu socday qolka situation roomka ayaa madaxweynuhu uu si toos uga socday sida sawirkan aad ka aragtaan waxaana ku wehliyay gulihiisa amniga qaranka oo dhammaanba qolka situation roomka kala socday marka diyaaradaha Mareykanku ay duqeynayeen goobahaas nuclearka ee waddanka Iran Trump shirka jaraa'id markii uu qabanayay waxa gadaal ka taagnaa madaxweyne ku-xigeenka JD Vance wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio iyo wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth Trump waxa uu sheegay inay gabi ahaanba burburiyeen saddexdii goobood ee Iran ay macdanta uraniumka ay ku hormarinaysay si oo hub nuclear ah ay uga samaysato waxana uu sheegay in goobahaas ay kala yihiin Fordo Natanz iyo waliba Asfahan waxa uu yiri waxaan joojinay qatartii caalamka isagoo ku tilmaamay Iran inuu yahay waddanka koobaad ee argagixisada taageero waxa uu sidoo kale uu sheegay in hadda caalamka waxaan u sheegaya ayuu yiri in goobahaasi nuclearka aan si rasmi ah aan u burburinay waxa uu yiri Iran waxa ay waday in hubkeeda nuclearka ay bacrimiso amaba uraniumkeeda si ay hub nuclear ay u samayso gabi ahaanna waan burburinay dhamaantood ayuu yiri Iran waxa uu yiri bariga dhexe ay waxay ku hayd caqabad isagoo sheegay hadda in arintaasi loo baahan yahay inay nabad qaataan haddii kale weerarada mustaqbalku waxay ahaan doonaan kuwa ka daran oo kuwana ka fudud 40 sano waxa uu yiri Iran waxa ay dhahaysay dhimasho ayaan u rajaynayaa Mareykanka iyo waliba Israa'iil waxana uu sheegay in dad fara badan oo Mareykana ay gacmaha iyo lugaha ka jareen bombo ee wadada dhinaceeda ay u dhigeen taasi oo iyagu ay ku takhasuseen in ka badan 1000 qof bariga dhexe iyo caalamkana waxa ay ku dileen ayuu dad aad u fara badan gaar ahaan generaalkoodii Qasim Suleimani oo Trump xilliga hore madaxweynaha 2020kii duqeyn Ciraaq ka dhacday lagu dilay waxana sidoo kale uu sheegay inuu hadda uu go'aansaday sida uu yiri in ay tahay xilligii tilaabadan la qaadi lahaa waxana uu sheegay in uusan u dul qaadan karin in arintan ay sii socoto waxa uu sidoo kale u mahad celiyay ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sheegay in arintan ay iska kaashadeen iskaashi aan waliba horey loo arkin waxa uu xaqiijiyay in meesha ay ka saareen qatartii xumaanta badnayd ee wuxuu yiri Israa'iil ay ku haysay Iran meesha gabi ahaanba waan ka saaran ayuu yiri ciidamada militariga ayuu u mahad celiyay taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo waxana uu yiri howl wanaagsan ayay qabteen markii ay duuliyeen diyaaradahaasi qatarta ah uu yiri si nabadan ah ay ku soo laabteen waxaan u maleynayaa mar dhow shaqada ay qabteen oo kale inaanan u baahnaan doonin waxa uu sidoo kale intaas uu ku daray in Iran haddii aysan nabad qaadanin in wali howlgalladu ay sii socon doonaan waxa uu yiri wali bartilmaameedyo kale ayaa jira hal laakiin kuwii ugu qatarsanaa hadda meesha waan ka saarnay ayuu yiri kuwa dambana waxay noqon karaan kuwa si fudud oo waliba degdeg uu ku jiro aan meesha uga saarno marka waxa uu leeyahay inta badan goobihii ugu muhiimsanaa hadda waan baabi'inay laakiin wali bartilmaameedyo kale ayaa jira haddii Iran aysan nabad qaadanin howlahan duqeynta waan sii wadaynaa marka Trump oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise.
Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale sheegay in maalinta beriya 8 subaxnimo ay shir diraayid wasaaradda gaashaandhigga ay ku qaban doonaan wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka. waxyaabaha kale ee soo kordhay waa idin soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono. waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.